markii ugu dambeysay uu dagaal ka dhaco Yurub waxay ahayd 1945 waa dagaalkii labaad ee adduunka waxa ku dhintay malaayiin qof malaayiin kalena ayagoo caalamka oo idinku kala qaxeen hadaba waxaa hadda muuqata in Yurub mar kale uu ka qarxi rabo dagaalkaas oo u dhaxeeyo labada wadan ee Yurub ugu dhulka weyn waa Russia iyo Ukraine 150 milyan Russia iyo 44 milyan oo Ukraine hadaba maxay tahay sababta ay isku dagaalayaan Ruushka iyo Ukraine maxaa ka dhaxayso muxuu Russia madaxweynaha Putin uu rabaa inuu ku duulo ama uu qabsado Ukraine ayaad sharafta la meel walba joogtaa wa salaamantihiin waa Maxamed Faarax hada video aan ku arkay social media fadlan la wadaag dhamaan asxaabtaada saaxiibna ila noqoto qorta YouTube iyo Facebook waxaan rabaa inaan si cilmiyeysan u istaago dagaalka maalmahan ka socda Russia iyo Ukraine u dhaxeeya warbaahinta dhamaantoodna ay ka faaloonayso saddexdii asbuuc la soo dhaafay mar walba furtid Russia iyo Ukraine dagaal baa ka dhacay rabo Yurub dagaal baa ka dhacay rabo dagaalka maxaa ka dhaba ma dhici karaa ma socda hadda maxay Russia ka rabtaa Ukraine sida ognahay Russia iyo Ukraine waa laba wadan oo darisa asal ahaan dad Slavic people waa dad isla oo isku jinsiyad ah luqadoodana ay isku dhowdahay wad walaalo ahaan jiray markii hore hal wadan ahaan jiray ka bacdina kala goostay 1991 markii Soviet Unionkii burburtay balse 2014 ka bilaabatay ilaa hadda saaxiibtinimada iyo walaaltinimada iyo darisnimada Russia iyo Ukraine waxay noqotay mid cadaabad ay isku hayaan labada wadan kadib markii madaxweynihii Ukraine Viktor Yanukovych xilka ay ka tuureen shacab Ukraine oo xanaaqsan markay ku eedeeyeen inuu yahay dabadhilaf u shaqeeyo Russia iyo Putin ayagoo raba inay ku darsadaan European Union ka qayb noqdaan sidaas ka bacdi markii madaxweynaha laga tuuray xilka waxa imaaday dowladdaas u janjeertay dhinaca reer galbeedka kana soo horjeedo Russia wuxuu xanaaqay wuxuu goostay gobolka Crimea intaas ka bacdi ilaa hadda dagaal ayaa ka dhaxeeyay oo sida la og yahay bariga Ukraine iyo galbeedka Ukraine ay u kala qaybsan yihiin maanta Ukraine bariga waxaa daga dadka ku hadla luqadda Russianka ah asalkoodana ka soo jeedo Ruushka halka galbeedka ay dagaan kaliya dadka asalkoodu u yahay Ukraine dadka bariga waxay rabaan in ay Ukraine ka mid noqoto Russia dadka galbeedkana Ukraine waxay rabaan inay ka mid noqoto in Ukraine ku biirto European Union iyo ururka NATO hadaba waa maxay ururka NATO muxuu u taagan yahay NATO saada Ukraine ka qayb qaato Russia ma ogolanaya Putin hadaba waa maya Russia ma ogola in Ukraine ay ka mid noqoto ururka NATO sababtoo ah ururka NATO waxa weeye 30 wadan oo isku tagay oo subistay military alliance kan wadan waxay ku midoobeen in wadan kamid ah wadanka hadii la soo duulo ay iswada difaaci doonaan kana qayb qaadan doonaan dagaalka lana gali doonaan dagaalka cidii ka soo horjeedo wadankaas 30 wadan kamid ah daba macnaheedu waxa waaye in 30kaas wadan Mareykan iyo Yurub ay ku wada jiraan in hatta nuclear weaponka Mareykanka ama Ingiriiska ama Faransiiska la geyn karo ama lagu talaali karo maadaama wadanka yahay Ukraine NATO du ka mid noqdo dhuumaha madaafiicda ballistic missiles ka la taagi karo ama la geyn karo Ukraine kaasoo Ruushka uu diidan yahay oo na careysan yahay waana sababta maanta na keentay dagaalka meesha oo marayo ama taagantahay rabshada meesha ka socoto Ruushka waxay rabaan in Ukraine aysan ka mid noqon ururka NATO madaxweyne Putin wuxuu rabaa in heshiis wada hadal ah oo saxiixa oo agreement ah ay kala qortaan ururka NATO iyo Ruushka taasoo sheegayso in Ukraine ay ka qayb qaadan karin NATO laakiin Ukraine madaxweynaheeda Vladimir Zelensky wuxuu rabaa in uu ka qayb qaato ama Ukraine ay ku biirto NATO NATO waxay rabtaa in Ukraine ay ka mid noqoto NATO halkaas ayaa la isku afgaranaya saddexdaas boqol la soo dhaafay waxa wada hadlaya madaxweynaha Mareykanka Biden iyo Putin dhamaan madaxda caalamka idil Macron madaxweynaha Faransa ayaa tagay Ruushka waxa la isku afgaran waayay in mataqaana la heshiis caalami ah la qorto Mareykanka wuu diiday heshiis qoraal ah oo sheegayo in Ukraine aysan ka mid noqon karin NATO Mareykanka wuxuu yiri Biden Ukraine waa wadan xor ah go'aankooda ayaga gaari karo
ayagaa sheegi karo waddankay rabaan inay ku biraan ama ururka midoway rabaan inay saaxiib la noqdaan. Putin wuxuu leeyahay waxaan ka xignaa dhimasho Ukraine oo ku biirto NATO. haddaba halkaas ayay kala taagan yihiin. waa laba wadan oo aad iyo aad walaalo isku ah balse colaad aad iyo aad soo kala gashay. maanta madaxweyne Putin iyo golihiisa la taliyaha amniga waxay ku dhawaaqeen in laba gobol oo bariga Donbas region kamid ah, labadaas gobol ee Luhansk iyo Donetsk, in ay xornimo ka qaataan Ukraine ayna taakulanaan ciidanna u diray. 150,000 oo ciidan oo hub casri ah wato ayaa waxay daasan yihiin xuduuda Ukraine iyo Russia. waxaana la sheegayaa in maalmahan saacadahan soo socoto ay gelayaan labadan gobol maanta lagu dhawaaqay labadan gobol lagu dhawaaqay in ay gali doonaan si ay u daaficaan dadka Russian ka degan. waxaa sidoo kale la filaya maanta madaxweyne Biden wuxuu wacay madaxweynaha Ukraine wuxuuna u sheegay in amnigiisa ee qatar ku jirto Zelensky ayna habboon tahay inuu iskaga qaxo caasimadda Kiev ee Ukraine. haddaba xaaladdu waxay u eg tahay mid cakiran, mid dagaal ku dhammaan doonto. haddii Russia ay ku duusho Ukraine ay qabsato maxay suubin rabtaa? Western intelligence Mareykanka iyo reer galbeedka dhammaan waxay sheegayaan in rabaan Ruushka markay qabsadaan caasimadda Kiev ee Ukraine ay dhammaan dilaan ama xirxiraan madaxda Ukraine hadda u dhisan sida madaxweynaha Ukraine Zelensky. in istolgareeyaan madaxweyne puppet ah oo ay ka amar qaadanaya Ukraine ay sidaas kula wareegaan ama ay rabaan Ukraine inay gooyaan Russia xoog ka mid noqdaan. haddaba haddii taas dhacdo reer galbeedka waxay ku dhawaaqeen in cunaqabateyn xadaafa ay saari doonaan Ruushka. cunaqabateyntaana 2014 ilaa hadda ay sanad Ruushka waxna way ka kare laadahay, waayo Ruushka dhaqaalihiisa labadan bari wuxuu u janjeeriyay dhinaca Shiinaha iyo Yurubna isku ma fiicna. Shiinaha reer galbeedka iyo Mareykanka isku ma fiicna. waxay madaxweyne Xi Jinping oo China iyo Vladimir Putin ay wada saxiideen dhaqaalahooda inay isku furaan shidaalka Russia uu soo saarana si xadaaf ah ee Shiinaha oo garato. balse waxaa runa in Yurub ama NATO iyo Mareykanka ee hadduu Ruushka uu ku weeraro qabsado Ukraine uusan dagaalka geli karin maadaama ay ka mid ahayn ururka NATO Ukraine, balse way iska fiirsan doonaan siday u fiirsadeen oo kale Crimea markay goosanayeen gobolka peninsula ku taal Ukraine markay goosanayeen oo kale iska fiirsanayeen. kaliya waxay kaga soo hartay galbeedka afka inay kaga dhahaan cunaqabateyn kaliya saarana balse ay dagaalkan. laakiin waxaa hubaala in malaayiin Ukraine ay ka soo qaxi doonaan Ukraine aadi doonaan u qaxi doonaan Poland. waxaa sidoo kale xusid mudan sababaha ay Ruushka iyo madaxweyne Putin ay ku xanaaqsan ay kamid tahay in ururka NATO iyo Mareykanka iyo reer galbeedka ay qiyaaneen ka bacdi markii Soviet Union ka burbureen 1990 ilaa 91 maadaama markaas verbal agreement afka kaliya ay ka wada hadleen loona ballan qaaday madaxweynihii mataqaana Ruushka xilligaas joogay in ururka NATO eastwards dhinaca bari uu expansion ku suubin doonin oo halkaas ku ahri doono Jarmalka uu ku ahri doono kaliya balse laakiin bariga la aari doonin. ka bacdi markii ay Soviet Union burburtay Russia xor noqotay waxaa soo baxday in wadamo badan oo Eastern Europe ah ama kamid aha ururkii Warsaw ay kamid noqdeen NATO sida Poland, sida Lithuania iyo wadamo aad iyo aad u fara badan. waxaa hubaala inay yaalaan hubka casriga ee nuclear weaponka maanta Poland hubkaas oo dhuumihiisa ay ku soo joodaan Ruushka. taas ayaa ka carisiisay reer galbeedka Ruushka iyo madaxweyne Putin iyo shacabka Ruushka ayaa aad iyo aad ula jiro madaxweyne Putin. waxaan la sheegayaa taageeranimadiisa in xaddaaf kor u sii qaaday waana marka kaliya madaxweyne Putin uu rabo inuu la dagaalamo reer galbeed ee taageerayaasha Ruushka xataa kuwa mucaaradka ah ee midnimada wadankooda ka difaacaan taageeraan wadankooda Ruushka. waxaa lagu taliyaa dadka Ruushka inay yihiin dadka aadka wadaniga u ah caalamka oo idin aaminsan maada Russia hooyadii Russia wadanka Russia. ugu dambeyntii akhyar waxay kula tahay haddii uu Putin ama Russia ay qabsadaan Ukraine maxaa dhici doona? Yurub ama reer galbeedka Mareykanka hadda hub casri ah ay u diraan Ukraine laakiin military ma gelin karaan oo ma dagaalka ma qayb qaadan karaan. balse hadduu dagaalka sii qaraarnaado ma laga yaabaa in NATO iyo Mareykanka iyo reer galbeedka ay dagaalka ayagana gali doonaan. haddaysan dagaalka galaan maxaa dhici karo? waxaa xusid mudan sidoo kale
in meeshaan ay tahay qatar hub nuclear weapon ay yeelaan Russia oo wadanka adduunka ugu hubka badan nuclear ka badan sidoo kale Mareykanka ayaa labeeyo laakiin hubkan is ag yaalo ama midka Poland yaala iyo midka Russia la isfiiranayo waxay carqalad ku keeni doontaa amniga adduunka dhamaanteen caalamka oo idil maadaama haday isku adeegsadaan ay bini'aadanka jiritaankiisii ay burburayso fikirka ka dhiibo dagaal dhaco ma ku saameyn karaa qasan Soomaalida badan oo Yurub joogo waxa waala inuu saameyn doono dagaalkaas iyo faafi doono qax iyo dib iyo rafaad u imaan doono sidoo kale waxa waala in maciishada nolosha ay kici doonto maadaama uu gobolkan yahay gobol shidaalka uu kici doono shidaalka kacana ay ku saameyn doonto nolosha iyada dhamaanteen raashinka dharka garashada iyo wax walba dhimasho badanna ay ka sababi doonto fadlan fikirka ka dhiibo waa Maxamed Faarax oo idin leh maalin wanaagsan